kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadda janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saare si ku soo gaaraan muuqaalada soo socda muuqaalkan share gareeya mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal haddii aan ku bilowno barnaamijkeena kooxda kubadda cagta Barcelona oo shaacisay magacyada afarta kabtan ee kooxda hogaamin doonto xilli ciyaareedka cusub Barcelona ayaa xaqiijisay in Messi, Busquets, Pique iyo Sergio Roberto ay yihiin kabtanadooda xilli ciyaareedka cusub. Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa loo codeeyay inuu yahay kabtanka koowaad ee kooxda Barcelona halka kabtanka labaad uu noqon doono Sergio Busquets. Gerard Pique ayaa ahaan doono kabtanka saddexaad kooxda Barcelona halka Sergio Roberto oo dhameystiri doono afarta kabtan ee kooxda Barcelona. Waana afarta kabtan xilli ciyaareedka cusub Barcelona 2020 iyo 2020 kabtanka kooxda noqon doono koowaad waxaa noqon doono Lionel Messi, labaad waxaa noqon doono Sergio Busquets, saddexaad kabtanka Barcelona waxaa noqon doono Pique, kabtanka afraad xilli ciyaareedka cusub Barcelona waxaa noqon doono Sergio Roberto. waa afarta kabtan ee kooxda kubadda cagta Barcelona xilli ciyaareedka cusub hogaami doono. qodobka kale barnaamijka aan ku soo qaadan doono xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona Philippe Coutinho ayaa lagu soo waramayaa in maamulka kooxdiisa weydiistay nambarka cusub kadib markii Antoine Griezmann markii uu qaatay nambarka 7 ee kooxda kubadda cagta Barcelona. Antoine Griezmann ayaa si lama filaan ah u qaatay nambarka 7 kaasoo Philippe Coutinho qaadan kahor intuusan ka tegin kooxda kubadda cagta Barcelona xagaagii hore. wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegaya in Coutinho oo doortay nambarka uu xiri doono kooxda Barcelona xilli ciyaareedka dambe. xiddiga Philippe Coutinho ayaa la filayaa inuu sii joogo kooxda Barcelona maadaama uu tababar Ronald Koeman qorshihiisa ku darsaday xiddiga reer Brazil. kadib Antoine Griezmann ayaa qaatay nambarka 7. xiddiga Philippe Coutinho ayaa dalbaday nambarka 8 kaasoo baneeyay Artur Melo kaasoo ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus. Pjanic ayaa beegsaday warbaahinta xiriirka bulshada ee dhinaca internetka si uu la wadaago taageerayaasha farxadiisa ugu dambeyn inuu shaqo ka helo kooxda Barcelona. wuxuu u arkaa sharaf inuu xirto maaliyadda kooxdiisa cusub. cidna weligeed xusuusataa kama qaadan karto laakiin tani waa bilow cusub iyo sheeko cusub oo cajiib ah ayuu Pjanic soo dhigay iyadoo uu heliyaan 3 sawir oo ah tababarkiisii shalay. Pjanic ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa reer Spain kadib markii uu kusoo kabsaday xanuunka safmarka coronavirus. dhawaan ayaan laga ogolaan doonaa inuu ku biiro kooxda weyn isla markaana uu ogaado doorkiisa cusub ee tababare Koeman. inkastoo kooxdiisa isku diyaarinayso kulamada saaxiibtimo ee isku diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub, Pjanic ayaa tababar gooni ku qaadanaya kaligiis garoonka Camp Nou Stadium ee wadanka Spain. ugu dambeyn kooxda Barcelona ayaa xalay ciyaartay kulan saaxiibtimo waxay la ciyaartay koox lagu magacaabo Gimnastic ciyaar ku soo dhamaatay 3 gool iyo gool. xidigaha goolasha u dhaliyay Barcelona waa Dembele iyo Antoine Griezmann iyo Philippe Coutinho. Barcelona ayaa kulan saaxiibtimo xalay la ciyaartay kooxda lagu magacaabo Gimnastic ciyaar ku soo dhamaatay 3 gool iyo gool. guddiga gunaanadkii ayaan soo gaarnay saaxiibayaal aragtidaad ka soo dhiibo sheergaray la wadaag taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.